السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقياتي وين سلامين عشركن wuxuu ku saabsan yahay sidee mobilkaaga screenkiisa aad keyboard desktopkaaga aad soo saari lahayd aad u isticmaalaysid Wondershare Mirror Go barnaamijka la hayo kuguma xujina inaad internet mobilkaaga ku xiran yahay kuguma xujina inaad username password email iyo waxaas aad samaysid waxa kaliya lagaga baahan yahay inaad barnaamijka soo download gareysatid kadibna aad mobilkaaga ku shubtid kaas ku hagaajina inaad keyboardka laptopkaaga ama computerkaaga caadiga ka jaatin gareynaysid WhatsAppkaaga iyo Viberkaaga فلاش اسمين kartid sababtana askaga wareeji kartid nooca fiidiyoyada ka soo dhalin karisata computerkaaga si toos ah ugu shubi kartid mobilkaaga sida isugu xiriir marka barnaamijkaas shaashadaadana ku soo kordheed mobilkaaga screenkiisa aan bilowno. marka sida ula soo degtid marka waxa lagaaga baahan yahay inaad website-kooda booqatid kaas oo description-ka kugu yaalo sidan ayaa kugu soo baxaya wondershare.com androonka ayaa soo dhalin karaysanaysaa kadibna downloadka cagaarka ayaad ku dhufanaysaa sidaas ayuu kugu soo degayaa kadib download ayaa leedahay ani hore ugu degsanay download markaa dhaho si automatic oo soo qaatay kadib open ayaa leeyahay kana iska xiro kadib open ayaa leeyahay failka wali Firefox ku xidhma lahan internet manager open ayaa leeyahay kadibna install ayaa leeyahay si uu ugu shubo barnaamijka waqtiga aad soo yareeyay sidaas ayuu speedkiisa ku badiyay kadib wax badan kama qaadanayo si toos ayaa hadhow mobilkaaga u arkaysaa sidaas waana barnaamij free ah wax lacag ma ahan mid lacag waa jira laakiin free waa hada kan kadib haddaan start idhaahdo waxaa laga yaabaa inuu website ku aado laakiin sidan kale ay kugu soo baxaya USB-ga waa inuu connection leeyahay debugging-ka waa inuu jack ku saaran yahay hadhowaana ku tusaa sida jack u saaran lahayd kadibna sidan ayaa kugu soo baxaya barnaamijka screenkiisa weli laakiin kuma xirno laakiin waxaa u baahan tahay waxay tahay calaamada falaarta hoos u bixaysa cagaarka labadaas ayaa keli ku siinaysaa kadib computerkaaga fiiri waxaa ogaanaysaa waa ujeedaa mobilkayga inuu si toos ugu xiran yahay computerka taas ayaa ku sheegaysa marka calaamada ku dhufto kadib mobilka wuxuu sameynaa mar labaad haddaan ku dhufto jeegsa marka la ku dhufaadana kadibna waxaa leedahay keliya hor waxaa u baahan tahay videoga in HD quality waa screenka dhow marka arkaysid high quality ee ku yahay kadibna meesha ku soo laab haddana calaamadaas ku dhufo kadib wuxuu sameynayaa in uu loading sameeyo USB-ga si uu ugu xiro computerkaaga iyo mobilkaaga iskugu xiro waxaan iska xiro kadib calaamadan ka jack it now ku dhufo kadib waxaan ku soo saaraa qaybta barnaamijka xayisiintiisa qaybta lacagta ku soo saaraa iska xir kali waxaan kana lagu sheegay inuu qayb kale lacag jirto laakiin kan waa free waxaan iska soo xir meeshaas ku dhufanayna haddii aad u baahan tahay calaamadina kadib ugu soo laabatid laakiin kan hoos ayaa isticmaalayna screenka u jeedaa inuu si weyn kugu soo saaray waa mobile tab 2 mobilada waaweyn waa laakiin adi screen yar ku soo saar hadii mobilkaaga yar yahay hadba screenka nooca haddii kale waa weydiinsan kartaa calaamadan ka soo laabashada isticmaalayna settingka tagaysaa sida debugging kugu tuso kadibna waxaad scrolling ayaa sameynaysaa meesha u hoose waxaad tagaysaa oo jeedaa in ku shaqo develop option inay ku qoran tahay about-ka ayaa ku dhufanaysaa develop option-kaas haddii ku muuqneen kadib waxaad tagaysaa building number meesha ku qoranta ayaa tagaysaa calaamad ayaa click siinaysaa si kugu soo baxo developerkaas kugu soo baxo sababta markaa format garis kuma soo baxa kuma muuqdo laakiin markaa calaamada building kugu jidid hore kugu jiro ayuu leeyahay kadibna calaamada ayaan ku dhufanaa developerka kadibna USB debugging-ka ayaan jaga saaraa haddii uu ku saaran yahay waa ku saaran yahay laakiin ku saaran jaga saar kadibna okay ayuu ka dalbanaya aniga waa hore igu saarnay sadarteedna labada isku xiriya debugging-ka sidaas ayaa u sameynaysaa computerkaaga si toos ayuu ugu xirmaya markaas meelaha transform waa sameyn kartaa laakiin barnaamijka wuxuu ku sameynaa ujeeda application saarta u isticmaali kartaa haddii aan isku dayno inaan taxiga soo furo keyboardka computerkayga caadiga ayaa waxaan u isticmaalaa inaan mobilkayga ka dhex qoraal sameeyo macnaha waxaan ku qorayaa assalaamu calaykum ujeeda keyboardki si toos ayuu ugu xiray kadib walaal si toos waxaan u garaacaa keyboardki waa ku jeeda androonka kuma muuqdo keyboardkiisa laakiin computerka si toos ayaan u garaacayaa walaal haddii aan
macnaha qoraalka waxa saa u samaynaysa waxay tahay waxa alle waxay u baahan tahay inaad Android-ka u sharaxdid qof kale oo walaalkaa dhibaataysan oo aqoon u lahaynin waxyaabo badan cilad ka haysataa laga yaabaa inuu mataqaanaa waxyaabahaas aad u faahfaahaysid sidaas ayaa ugu duubi kartaa screen-kaaga si toos ah mobilkaagana uga duubi kartaa calaamadaas ka laabasho waa background-ka dib ugu laabanaysaa wayna kuu fududahay haddii xataa iska xirtid waa ujeedaa task manager-ka ayuu kugu jiraa ilaa meeshaas exit ka dhahdi markaa ma baxayo USB-gana jaagga waa inuu USB kugu xiran yahay haddii aad baata screen-ka inaan weynino calaamada waxay ku samaynaysaa inaa markaa furtid geesaha oo ujeedaa u weyneyn kartaa geesaha ka weyneynaysaa size-ka caadi weyneysan kartaa dhib malaan laakiin waxaa laga yaabaa in resolution-kiina kalaga si fiican kaaga dhumo oo si fiican aan loo arkay markaa ku duubtid laakiin kan waa tab 2 screen-kiisa aad shaashada weyn waay marka muhiimadda barnaamijkan ku anfaca application markaa furtid waa ujeedaa barnaamijyada dhan baa kugu jiro saa darteed wuxuu ku caawinaa in qof kale ka caawisid barnaamijyada waxa wuxuu Android-ka dhibo iyo video ku sameynaysaa fadlan daawaalida videogaas cilada ku haysata sidaas ayaa u bixi kartaa inay ku fududaa inay ka caawisid marka insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajeynaa inay ka faa'iideysan doontaan wixii su'aalo fadlan comment ku soo qor cilmigan aan kala faa'iideysano asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa jazaakumullahu khayran